magaalada Bushkar ee dhacda gobolka Rajasthan ee dalka Hindiya ayaa waxaa ka bilowday bandhiga qoobka ciyaarka Geela. Magaaladan ayaa caan ku ah tababarida Geela loo diyaarinayo inay ka qayb galaan munaasabad diimeedka Hindidu ee loo yaqaano bandhiga Geela ee Bushkar. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala xarumo gaar ah oo lagu tababaro Geela la barayo qaabka uu u sameyn lahaa qoobka ciyaarka marka munaasabadaasi ay socoto. bal ila daawada muuqaal kooban oo laga soo duubay geel goob fagaaraha ku soo bandhigaya qoobka ciyaar aad u qurux badan aadna u soo jiitay dadkii goobta ku sugnaa. waxaa sanad kasta munaasabada dhoolatuska qoobka ciyaarka Geela la isugu keenaa in ka badan 30,000 oo neef oo geela kuwaas oo la baray qaabkii ay ula jaan qaadi lahaayeen muusikada inta ay socoto munaasabadu iyadoo hadba loo daaro muusiga noocyadiisa kala duwan. munaasabadan ayaa sidoo kale soo jiidata in ka badan 2,000 oo dalxiisayaal sanad kasta sida wasaaradda dalxiiska ee dalka Hindiya ay warbaahinta u sheegtay. dalka Hindiya ayaa kaalmaha hore kaga jira meelaha dhaqamada iyo caadooyinka la yaabka leh ay ka jiraan caalamka oo dhan.